shir aan la galnay madaxweynaha cabdicasiis laftagareen ee koonfur galbeed. ilaahay baa mahadle arrimaha aan ugu nimid oo muxuu ahay wadooyinka iyo muxuu ahay isbaarooyinka wuxuu naga ballan qaaday in allaale intii aan wax uga baahannahay oo waxqabada inuu nagala qabanayo annagoo uga soo safarnay magaalada muqdisho rabnana ilaa gaadiidka dhibaatada haysata ilaa gade inaanu aadno. madaxweynaha aad baan ugu mahad celinaynaa anigoo ah cabdikariin cabdulla bariise gambo ku magac dheer. shirkaasoo maanta madaxweynuhu nala galnay wuxuu noo ballan qaaday wax allaale dhibaatada gaadiidka wadadaas marta ee lacagta looga qaado wax allaale wixii aan uga baahannahay inuu maaragtay ou naga dhimayo. waxaan ku nimiday guddiga gaadiidka dhibaatooyin gaadiidka koonfur galbeed uu ka tabanayay ayaan u nimiday. madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ayaan kala hadalnay mawduucii aan u keennay oon ka codsanay oon hordhignana 90% waa naga aqbaliyey. waa ballanqaadna waa noo sameeyey in wixii oo qoraalaho dokumentiya aan u keenno wixii markaas maamulka ku baxayo iyo wixii maamulka magaciisa ku baxayo wadada ka jiro ama dowladda koonfur galbeed dhexdeeda ka jirto in aan u soo gudbino. intaasuu naga codsaday annagana waxa aan raadinaynay intaasay ahayd. aadan u soo dhaweyhaynaa waxqabad waaye muxuu ahay hadda ka hor waxaa la yidhi nin madaxweynaha oo maxamed siyaad barre loo keenay halleegeey yidhi marka uu halleegeey yidhi waa loo geeyey markii loo geeyo miiska hoostiisa gala ninkii madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed laftagareen maalinka mahadana ilaahay maadiisada sharafti leh oo nanin qaabili geeka madaxtooyada koonfur galbeed naninka qaabili sada sharafti leh iyo wanaag leh nanin dhawaay eeda anka mahad nagaana wali dantii una lahaynina jeedisini insha Allah yaaqo documentation ray wala siin ku qowdana naari taasna ilaahay baa mahadle madaxweynaha iyo maamul sheekab sharaf taas kale Faisal Maxamed Isaaq